agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Somaliland Maxamed Cabdilaahi Ducaale ayaa magaalada Burco ku qabtay kulan hawleedka wacyigelinta ilaalinta deegaanka iyo isbeddelka cimilada. Kulankan oo socon doona muddo 2 cisho ah ayaa lagaga arisanayay sidii loo ilaalin lahaa deegaanka iyo isbeddelka cimilada, iyadoo ay ka soo qayb galeen guddiyo laga soo xulay degmooyinka Burco, Oodweyne, Sheekh Caynabo iyo Laascanood. ugu horreynba waxa halkaasi ka hadlay agaasimaha waaxda fayadhowrka deegaanka iyo bilicda magaalooyinka Maxamed Yaasiin Cabdiraxmaan iyo la taliya Yuusuf Warsame Mire. waxaan ugu talagalnay runtii kulan hawleedkan in aanu wacyigelin ku siino degmooyinka kala duwan ee aad ka socotaan guddiyadii aad ka koobnaydeen ee xaafadaha ee degmooyinkaasi ka kooban yihiin isbeddelka cimilada iyo arrimaha deegaankeena ka jira saameyn runtii aad u daran bay nagu yeesheen. abaaraha ayaynu ka warqabnaa runtii soo noqnoqda, waxaynu ka warqabnaa roobabkii guga oo baaqda, waxaynu ognahay runtii yacni arrimahaasi nolol maalmeedkii bulshada saameynta ay ku yeesheen. waxaan doonaynaa wasaaradda deegaanka ahaan in aanu idinla wadaagno xogta deegaankeenna ee uu ku sugan yahay imaka, si runtii arrimahaasi markaad ogaataan aan idinkana idinku baraarujinno waxyaabaha aynu ka wada shaqayn karna ee aad qaban kartaan idinka oo bulshadiiya. sidoo kale kulan hawleedkan ku la mid ah ayaanu u qaban doonaa dowladaha hoose oo isagu ah mid xirfadeed, kan waa mid wacyigelineed oo xog aynu isweydaarsanayno. waxaa loo baahan yahay inaynu la nimaadno qaabkii aynu ula tacaali lahayn aynu ula jaanqaadi lahayn. haddii aynaan samaysan markaa si wada jir ah istiraatiijiyadii aynu cimilada isbeddelka ilaa kama qaban karna inagu xoog weyn uma lihiin, awood badan uma lihiin, inaynu la jaanqaadno oo wixii tamarteena iyo awooddeenna aynu qaban karno sidii aanay saamayntaas xoog inoogu yeelan lahayn ayaa loo baahan yahay inaynu ka wada fikirno, ka wada hadalno, ka doodno, markaa wax isla meel dhigno, loo sameeyo markaa xidhiidhin cidda mas'uuliyadda qaadaysa iyo qol waliba kaalinta ay ka qaadanayso. gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Somaliland Maxamed Cabdilaahi Ducaale, isagoo ka warramay kulan hawleedkan ay ku qabteen magaalada Burco, waxaana ka mid ah hadalladiisii sida tan. kulan hawleedkan sidiisaba aynu degmooyinkan idinku aad ka mid tihiin maanta halkan lagu siinayo qodobka koowaad waxa weeyaan ilaalinta deegaanka iyo isbeddelka cimilada. deegaanku waa hab nololeedkeennii aynu u noolayn, waa wax alaali wixii nolosheennii saameynayay. waayo haddaynu gurigaa maanta ka baxno, bannaanka u baxno, haddaan dhirtaasi jirin dee waa sidaynu u noolaanayna way adkaanaysaaba. qodobka labaad ee meesha ku jiraana waa wax la yidhi isbeddel cimilo. in badan baynu maqalnaa isbeddelka cimilada. haddaba kulankan maxaa la idinka baahan yahay idinka 2 maalmood soconaya inaad u dhugataan ood xoogga saartaan? horta waa marka koowaadee waxaad baranaysaan muxuu yahay horta isbeddel cimilo. waayo haddaydan nuxurkii fahmin horta waxani muxuu yahay oo aydan u fahmin hab inaga nolosheen khuseeya, macno weyn ma samaynayso inaynu waxyaabaha kalena fahanna. taas waa qodobka labaad ee meesha ku jira waxa weeye waa bal haddiiba aynu isla fahanno isbeddelkii cimilada inagu bulsho ahaan, maadaama guddiyaday tihiin dee muhiimka ahaa ee degmooyinkan ka yimi, waayo dowladnimadeenna asaaskeenu waa halka hoose. sharcigeennuna wuxuu ina farayaa in nidaamka dowladnimo la daadajiyo, waana waxyaabaha loo baahan yahay mustaqbalka shaqooyinka dowladnimo oo dhan inay dowladaha hoose qabtaan ee degmadaas. wax yar baa inta badan ku hadhi doona dowladda dhexe, shaqooyin badanna waa tallawado. waxaa kaloo iyaduna runtii aad baran doontaan 2 cisho muhiima, bal isagana guud ahaan deegaankeenna sidayna u ilaalinaa. muxuu yahay doorka idinku ama dowladaha hoose iyo guddiyadu ay ka qaadan karaan ilaalinta deegaanka? sidee baynu u ilaalin karnaa khayraadka ilaahayna siiyey ee deegaankeena? Cabdirashiid Timir, maqal muuqa caalamiga ah ee Home Cable TV, Burco.